muuqaalkan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qodob aada muhiim u ah wuxuuna ku saabsan yahay cilmi nafsiga. Marka laga hadlayo cilmi nafsiga waxaa jirta waxyaalo aada u muhiimsan si gaar ah ee qodob dheer loo eego ay ka mid tahay kalsoonida ama shakhsiyadda qofka. Marka cilmi nafsiga gudihiisa la joogo waxaa la yiraahdaa personality-ga ama shakhsiyadda qiimo weyn ayay ku leedahay qofka ama qofka bini aadamka inuu barto ama ogaado shakhsiyadiisa qofka uu yahay. Sidaa darteed maanta clipkan waxaan idinkula wadaagi doonaa qofkee ayaa tahay adiga. Dadka kale waxay sheegayaan miyaa tahay mise waxaa tahay qofka aad tahay. Marka ugu dambeyso ee muuqaalkan aad dhamaysatid insha Allah waxaan rajaynayaa inaad isheshid qofka aad tahay, shakhsiyadaada inaad isheshid. waayo qofka marka uu shakhsiyadiisa ama qof ahaantiisa ishelo waxa uu helayaa kalsooni buuxdo, waxa uu helayaa inuu kula noolaado bulshada iyo cid kasta ee cilaaqaad iyo xiriir uu la leeyahay si wanaagsan oo qurux badan. haddaa aragtid qof shaki badan, qof xaasid ah, qof been badan, qof wax isdaba mariyo, qof qayaano badan, qof mar walba wax ay u laaban yihiin oo nolosha ka cabsado, haddaad aragtid inta badan waxyaalaha keena waxaa ka mid ah qofka weli shakhsiyadiisa muusan ishelin. marka qofka shakhsiyadiisa oo ishelo been ma sheego, wax ma qayaano, xaasid ma aha, wax isma daba marsiiyo, wax kasta sida ay tahay ayuu u jaha. kalsooni ayuu qofka isku qabaa. waxaa laga yaabaa qof wax badan ee uu sheegahaayo ama wax badan ee uu gudbiyahaayo ama wax badan ee bulshada kale ay ka faa'iido kartahay haddana cabsanayo. mar haddaa aragtid inaad cabsanaysid, mar haddaad aragtid inaad maxay aheeday tahay qof gadaal u gabanayo, qof wax qarinayo, qof shaki qabo, qof amaa lagu yiraahdaa, amaa laga sheega, amaa lagu caaya, amaa lagu xantaa, haddaad aragtid qof xaasid, haddaad aragtid qof been badan, waxyaalahaas oo dhan weli dadkaasi ma aha iyaga inay xun yihiin ma aha, laakiin weli shakhsiyadooda ayay helin. marka adiga maanta i daawanayo muuqaalkan daawanayo waxaad isku daydaa calaamadaha aan ka hadli doono inaad leedahay. haddii aad lahayn maanta laga bilaabo inaad raadisid sida kalsooni buuxda ee shakhsiyadaada aad ku heli lahayd. shakhsiyadda qofka shakhsiyadiisa iyo dabeecadiisa maxay ku kala duwan yihiin? inta badan waxaa laga yaabaa dabeecadda inaan aqaano. hebel wuu dabeecad xun yahay, heblaay way dabeecad xun tahay, hebel wuu dabeecad fiican yahay, waxyaalahaas inaan inta badan ka hadalno. laakiin shakhsiyadda badana lagama hadlo. maxayse ku kala duwan yihiin dabeecadda iyo shakhsiyadda? dabeecadda waxaa la yiraahdaa waxyaalahan banaankaada ah ee marka aad dadka la joogtid habka aad u dhaqantid, marka aad hadlaysid ee dadka aad la hadlaysid sidaad u dhaqantid, marka aad soo hor fariisatid camera ama wax duubaysaad u dhaqantid, dadka markaad bulshada ku dhex jirto ama qoyskaada ama caruurtaada ama familkaada, asxaabtaada, goobaha waxbarashada, arrimaha bulshada, waxyaalahaas oo dhan markaad ku dhex jirtid dadka waxyaalaha aad kula dhaqmaysa ee dadka ay ka arkayaan waxaa la yiraahdaa dabeecad. laakiin waxaa jirta shakhsiyad adiga kuu gaara. goorma la arkaa marka shakhsiyadda maxayse tahay? shakhsiyadda waxaa la yiraahdaa marka aad adiga keligaa tahay, keligaa markaad tahay, hab dhaqankaada keligaa ah, sida aad u dhaqantid markaad keligaa tahay, sida aad adiga qaab qof ahaan isu taqaanay aad u fikirtid markaad keligaa tahay. taas waxaa la yiraahdaa shakhsiyadda. waana gudahaada, waana mid dhabta ah ee adiga aad tahay. dabeecadahan banaanka ee dadka aad kula dhaqmaysa adiga ma tihid, laakiin waxaa tahay shakhsiyadda dhabta ah ee gudahaada ayaa tahay. marka inta badan waxaa dhacdo haddii aad aragtaan ama dadka aad aragtaan bulshada ama aad dadka dhexgashid ama dadka aad la sheekeysatid, waxaad arkaysaa haddii aad tiraahdid su-aal aad weydiiso tiraahd bal adiga iska waran qofkee ayaa tahay, qofka waxa ugu horeeya ee uu soo hormarinayo waxaa waaye dabeecadiisa uu ku sheegay. waxaa jirto baaritaano badan, cilmi baaris badan ee lagu sameeyey markay noqoto dhinacan cilmi nafsiga dadka lagu sameeyey. cilmi baaristaasi waxaa laga sameeyey jaamacadda la yiraahdo Harvard University, iyadoo markaasi lagu eegayay ama lagu ogaanayay dadka trade-yadooda. trade-ka waxaa la yiraahdaa dadka trade-kooda. trade waxaa la yiraahdaa marka shakhsiyadda, dadka shakhsiyadooda kala duwan. waxaa jirto shakhsiyada aad u kala duwan, qof walba shakhsiyad buu leeyahay, laakiin shakhsiyada ee dadka bini aadamka ay ka kooban yihiin ilaa 16 shakhsiyadood ay ka kooban yihiin. 16ka mid kamid baad ku jirtaa adiga. 16kaasi
afar kamid ah waxaa la yiraahdaa shakhsiyadaha aadka u qalafsan oo ay ku jirto shakhsiyadka ama shakhsiyada la yiraahdo nervous systemka la yiraahdo ay ku jirto 12 shakhsiyadooda kale waa dadka dhaqamadooda caadiga ama markaad aragtid siday u dhaqmaan caadooyinkaasi ama traitkaasi dadka dhexdiisa waxa laga soo dhax saaraa afar kalar oo waaweyn ee dadka ay u kala baxaan oo dabeeca ama shakhsiyadaha kalarada shakhsiyadaha dadka lagu kala garto ee afar category ayaa loo sii kala saaraa macnaha waxa soo dhan barasho u baahan tahay marka uu qofka marka ogaado inuu ku jiro 16 kaasi trait ama shakhsiyadeed mid kamid inuu ku jiro qofka markuu ogaado category ahaan qaybta color ahaan uu ku soo jiro markuu ogaado qofka wuxuu baranayaa banaankiisa dadka ay arkaan wax ka duwan inuu yahay marka qofka marka uu dhinacaasi halka galo qofka wuxuu noqonayaa qof si fiican isaga warqabo qof is yaqaano shakhsiyadiisa iyo qofka uu yahay laakiin waqti u baahan tahay hadaba waxa soo dhan markaan ka soo laabano saddex ayaa jirto lagu qiimeeyay dadka in ay ku kala jiraan oo kale oo saddex qaybood ah saddexdaas qaybood waxa weeyaan waa saddexda P ayaa la dhahaa P for Ben mid u taqaanaa weeyaan saddexda B ay dadka ku kala jiraan people professionally iyo personality dadka marka saddexdaas ay ku kala jiraan daraasadda waxay sheegaysaa 2% ayaa ku jirto personality 2% waa dad aad u yar ayaa is yaqaan shakhsiyadooda oo qaybtan personality-ga ku nool inta kale waxay u qaybsamaan qofka inuu ku nool yahay professional oo ah inuu yiraahdo anigu waxaan ahay macallin anigu waxaan ahay professor anigu waxaan ahay wariye anigu waxaan ahay qofkii calaashan professionkiisa inuu qofka ku noolaado uu yiraahdo anigu waxaan ahay anigu waxaan ahay president aan ahay madaxweynahan ahay ra'iisul wasaarahan ahay gudoomiyahan ahay qofka inuu professionkiisa ku nool yahay iyo qofka inuu ku nool yahay people oo ah dadka waxay ka sheegayaan waad caddahay waad dheer tahay waad qurux badan tahay waad madowdahay waad foolxun tahay karti ayaad leedahay wax soo saar ayaad leedahay qof liita ayaad tahay nacas baad tahay waad ceebaysan tahay waad amaanan tahay sharaf ayaad leedahay waxyaalahaas oo dhan waxay dadka ka sheegayaan waa people dadka waxa ay ka aaminsan yihiin weeyaan P-da ama P-da saddexaad oo ah personality marka laga soo taga marka 2% ayaa ah waxa ay yihiin aaminsan personality-gooda professionka aan aaminsaneen people's placing ama dadka kale waxay leeyihiin aan aaminsaneen marka taasi marka waxa la raahdaa waa darajooyin ama dabaqado kala soreeya dabaqada koowaad waxa waay inaad adiga is aamintid dadka waxay ku leeyihiin waa dadka ku nool waxa la raahdaa dadka kale waxay ka aaminsan yihiin ku nool dadka kale waxay ka aaminsan yihiin calaashan dadka sidaas ay igu dhahan dadka sidaas ay igu yiraahdaan dadki iyo dabaqada labaad oo ah professional oo ah yes waxa aad adiga baratay inaad tiraahdid waxaasan ahay waxaad adiga baratay inaad tiraahdid waxaasan ahay dabaqada koowaad marka waxa la raahdaa P oo ah people dadka kale waxa ay ka sheegayaan inaad aamintid haday dadka ku yiraahdeen waa qurux badan tahay inaad faraxdid haday dadka ku yiraahdaan waad foolxun tahay inaad niyad jabtid haday dadka ku yiraahdaan waxaan waa sameyn kartaa inaad sameeysid haday dadka ku yiraahdaan ma sameyn kartaa inaad sameeysid tusaale markaan ka soo qaato gabdhaha kale gabadha markay aroos tahay habeenka arooska ama honeymoonkeeda ama arooska ay tahay gabadha aad loo amaana reerkii wiilka ka guursanaya ayaa amaanayo reerkii ay ka dhalatay ayaa amaanayo tolkeeda ayaa amaanayo taash ayaa loo xirayaa waa loo buraanburayaa waa loo heesayaa waxyaalahaas oo dhan waa waxa dadka ka imaanay laakiin gabadha marka ay guriga tagto ay guriga ku noqoto taashkii laga dhigo dharkeeda caadi ay xirato shakhsiyadeeda ayay noqonaysaa waxa dadka ay sheegayaan dhan ma aha gabadha shakhsiyadeeda ayay noqonaysaa taas marka waxa la yiraahdaa dadka kale macnaha waxa dadka kale ay ku leeyihiin inaadan adiga ahayn laakiin aad tahay personality-gaada ama shakhsiyadaada ayaa tahay dabaqada labaad waxa la yiraahdaa professional oo ah dadka inay ku dhahaan dhaqtar baa tahay madaxweyne waaye la sharfo hala sharfo mudane madaxweyne jaalle madaxweyne maxay ahaday doctore engineer ustaadi every kinds of these kinds oo adiga wax barashadaada ah ama wax qabadkaada ah inay dadka kugu yeeraan isla markaana aad u maleysid inaad adiga marka dadka ka duwan tahay aad xogaa is sare isu qaadid laakiin markaad gurigaada ku noqotid miiskaada hortiisa aad fariisatid ama aad kaligaa noqotid shakhsiyadaada ayaad noqonaysaa ma tihid dadka kale waxay ka aaminsanayaan laakiin shakhsiyadaada ku soo laabanaysaa iyo
بيدا سدحدو personality أدي دبقة أقول صريسة مركا وينات personality قاعدة حاتا هذي دتك كو أمانان ويناد أمهد علي ساتر هذا أدبد أمها سنتين لكن مسكحيا أهانين هذا إسكاد عيرين قف كاسي لأمانة أمان تاسي إنها راعين وهلها emotion كل جوجا أما إن محي هذي كل جوجتو شعور تاذا كحسن تهاي إن هذا إسكو قرين حل جاسي إن هذا إسكو قرين وحتى سدوا كلا دينا عكلا إن آذن أهين wixii aad baratay cilmiga aad baratay waad leedahay ma sha Allah ku anfacaya dadkaad wax ugu taraysaa noloshaada wax ugu taraysaa shakhsiyadaada personality-gaada ayaad ku dhisaysaa laakiin adiga cilmigaasi ma tiid aad baratay adiga waxa tahay personality-gaada shakhsiyadaada ayaa tahay haddaba marka aad ogaatid inaad adiga tahay shakhsiyadaada aad tahay waxaad helaysaa kalsooni sababtoo ah maanta waxaa laga yaabaa inaad kalsooni haysanin oo aad aamintid kali dadka markay ku amaanaan inaad fiicnaatid dadka hadday ku caayaana inaad niyad jabtid waxaa keenaya marka qofka inuu been sheego qofka inuu maxay ahaday xaasid noqdo qofka inuu waxyaalo kale ku sameeyo si uu ku hanto waxaa keenayo maanta haddii lagu amaano ee berri wax ku amaano aad weysid waad niyad jabaysaa maanta haddii lagu buunbuuninayo meel lagaa yaqaana aad tagtid oo aad ka tagtid oo aad professor ka tahay ama madaxweyne aad ka tahay ama jaale aad ka tahay aad ka tagtid oo meel kale aad tagtid waad niyad jabaysaa waay sababtoo meeshan kale aad tagtid dadka kuma yaqaanaan oo sidii xagga ama xaafadiina ama magaalada aad ka timaada lagaaga buunbuuninayo laguma buunbuuninayo sida darteed waad niyad jabaysaa xataa haddaad professional tahay dad badan waxay ku dhacday marka ay yimaadeen ay wadankii kasoo tageen ay yimaadeen wadamadan qurbaha ayaa ku dhacday iyaga oo isla sareeya isla qabweyn oo la amaanayo oo bulsho la jecel yahay intay kasoo dhaxbaxeen high quality ah baa markay wadamadan kale imaadaan shakhsiyadooda caadi ah lagu qaabilaya markaas way niyad jabaan markaas dib u noqdaan markaas dhaadaan meeshan ma fiicno meeshan kuma noolaan karo waay because wali shakhsiyadiisa qofku muusan helin haddaba markaa waxaan u baahanahay daawade haddii maanta kalsooni darro ay ku hayso ee maanta aad is leedahay waxyaalihii ceebaalka lahaa ee aad samaysay qofna adduunka iskuma dhamo qofna 100% wax kasta kuma dhamaystirna ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa dhamaystiran laakiin qof walba waxbaa ka dhiman waxyaalaha kaa dhiman haddii aad ka welweleysid ama dadka ceebahaada sheegaan ama dadka sidaan ay ku arkaan markaad ka tagtay kadib ama lagu xantaa maxaa lagu dhihi waayay sida hebel maxaad u noqon weysay sida heblaaye maxaad u noqon weysay waxaa jira dad badan ee aad arday isla aheedeen ama jaamacadii isla dhiganayseen dugsi hoose dugsi sare isla soo dhigateen waxbarasho isla soo qaadateen daris aad ahaan jirteen ee markaad maanta baraha bulshada ku aragtid ama media aad ku aragtid aad ka maseeraysid sababtoo ah magaca loogu yeerayo heybadda ay leeyihiin bulshada say u aragto adiga waad ka duwan tahay laakiin waxaad ogaataa qofkaasi markuu kaligiis noqdo ee uu computerka hortiisa tago ama kamerada horteeda uu tago ama uu gurigiisa joogo dharkiisa uu xirto jikadiisa iyo hooshiisa uu ka shaqeynayo shakhsiyadiisa ayuu ku noqonaya waxa dadka ka aaminsan yihiin dhan ma aha shakhsiyadiisa ayuu taagan yahay adiga asaga isku mid baatiin marka wax badan kuma kala duwanadeen haddaba marka dadka waxyaalahaas oo dhan aaminsan waxaan rabaa maanta laga bilaabo inaad raadisid shakhsiyadaada adiga qofkee baa tahay ma waxaad tahay qofka dadka kale ay sheegayaan mise waxaad tahay qofkaad adiga tahay haddii lagu caayo ee lagu yiraahdo waa doqonkii dheeraa waa kii lugaha yaryaraa faysalkii mijimaha baastada lahaa maxay ahayd farxiyadii foosho xumeed tii madoobeed waxaasoo dhan dadka ay ku dhahayaan adig matid maanta laga bilaabo waxaad samaysaa bogii qalin qaado number 1 shakhsiyadaada raadi markaad keligaa tahay maxaad qabataa maxaad ku faraxdaa markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay inaad samaysid markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay markaad habeenkii sariirta tagtid keliga aad tahay ee aad seexanaysid ee barkinta aad madaxa saartid sidee baad u fikirtaa qab dhaqankaada waa sidee markaad keligaa tahay xiriirkaada waa sidee markaad adiga naftaada seed ula xiriirtaa adiga jirkaada sidee baad ula xiriirtaa xubnahaada jirka sidee baad ula xiriirtaa cuntooyinka aad cunayso iyo nolosha aad ku nooshahay sidee baad u kontarooshaa exercise ma samaysaa jimicsi adiga naftaada ma u samaysaa ma u fiican tahay xiriirka adiga ilaah idinka dhaxay ma wanaajisaa salaadahaada sida saxda ah ma u dukataa macnaha shakhsiyadaada dib ugu soo noqo yasi waxaad arki doontaa marka qofka dhabta ay aad tahay
dadkaasoo kale dhan dareemahooda waxa ay sheegayaan kuma dhaqaajin doonaan. haddii lagu ammaano waad u mahad celinaysaa dadka, waxaad leedahay aad u mahadsantiin, maasha Allah, waan ku faraxsanahay inaan haysto dad i ammaano, waan ku faraxsanahay inaan bulsho haysto. waayo qofka bini'aadamka ah waxaa la dhahdaa bini'aadamka waa social animals, bulshada kale waad u baahan tahay. laakiin micnaheeda ma aha inaad isu dhiibto shakhsiyadaada dad kale inaad siisid, micnaheeda ma. so waa inaad ogaataa shakhsiyad gaar ah ayaad leedahay, sideed ku soo saari kartaa shakhsiyadaada gaarka ah ee adiga kuu gaarka ah ee aad leedahay. haddii dadka ay kaa soo farageliyaan aad ka ceshan kartaa. waxaa jira buug la yiraahdo Surrounded by Idiot. buuggaasi Surrounded by Idiot dabaqadaha dhinaca kalarka shakhsiyadda ayaa badanaa lagu soo qaataa, ayuu aad loogu kala sharaxaa. wuxuu soo qaataa afar nuuc ama 4 kalar inay dadka shakhsiyadooda u kala baxaan. 4ta mid kamid ah category baad ku jirtaa. inaad tahay guduud oo aad tahay dabeecadaada oo aad tahay shakhsiyadda gaduudan, inaad tahay cagaar oo aad tahay shakhsiyadda cagaaran, inaad tahay buluug oo shakhsiyadda cirka la yiraahdo, iyo inaad tahay shakhsiyadda yellowga ama la yiraahdo jaalaha. categorigaasi aad ku jirto markaad ogaatid, shakhsiyadda aad ku jirto markaad ogaatid, waxaad arki doontaa dad badan ee aad kala duwan tihiin, ee aad isku shakhsiyad ahayn. sidoo kale waxaad baran doontaa dadkaasi caalamka aad la dhaqmaysid, qof walba siduu yahay inaad kula dhaqantid. waay maxaa yeelay qofkan shakhsiyadiisa ayaad helaysaa, hab dhaqankiisa ayaad ka baranaysaa qofka shakhsiyadiisa, sidaa darteed shakhsiyadiisa ayaad ku ixtiraamaysaa. so qofka marka uu barto shakhsiyadiisa, personalitygiisa uu barto, dadka iskuma dhacaan, dadka kale kama walwala hadaladooda, dadka kale waxay ka aaminsan yihiin kama walwala, dadka kale waxyaalaha oga imaanay kama walwala qofkaasi. waxaa jira marka aan ku jiro xilliga sessionka therapy-da aan ku jiro, su'aalaha dadka aan weydiiyo aan dhageysanayo, waxyaalaha dadka aan ka maqlo waxaa kamid ah inay leeyihiin maxay ahayd dadka kale aniga haddii aan is ilaaliyo, aniga aan noqdo qof positive, aniga aan noqdo qof wanaagsan, sideen dadka kale uga baxsanaya. dad badan oo xaasid ayaan leeyahay, dad badan oo inacab ayaan leeyahay, dad badan oo maxay ahayd iga soo horjeeda ayaan leeyahay. sideen dadkaasi uga adkaan karaa haddii aan positive noqdo, shakhsiyadeyda aan wanaajiyo. sidoo kale waxyaalaha aan dadka ka bartay waxaa kamid inay yiraahdaan qofkii dadka waxbay iga sheegayaan suuqa haddaan maro, dadka marka aan halkaasi maro way isoo fiirinayaan, way i xamanayaan, hoos ayay ii eegayaan. macnaha waxyaalo badan ee hoos u dhigid ah ee dadka bulshada aan kala kulma ayaa jiro. xaafadahaas inaan ka guuro waxa darteed uga guuro, magaaladaas inaan waxa darteed uga tago. macnaha waxyaalahaas oo dhan, macnaha qofkaasi ma aha inuu qof nugul yahay, ma aha, laakiin qofkaasi weli waxaa ka maqan shakhsiyadiisa muusan helin. waxa u soo sawirmaya dadka kale waxay ka aaminsan yihiin, dadka kale waxay dhihi lahaayeen, ficilka uu sameey sida looga jawaab celin lahaa, waxyaalahaas qofka ku mashquulaya. soo maanta laga bilaabo daawade, haddii aad agoodi kartid inaad akhrisid buuggaasi Surrounded by Idiot, akhri si aad shakhsiyadaha dadka u baratid. sidoo kale qaybtan personality trait-ka haddaad baran kartid, buugag badanaa laga qoray ama fiidiyooyin badan aad helaysaa oo dad badan oo ka hadlaya English ku hadlaya aad helaysaa. haddaad baran kartid waa okay. haddii kale adiga dib isugu noq. xitaa waxaa jira cashiro badan oo aan duubnay aniga iyo Faisal Shanwiil oo shakhsiyadda ka hadlaya. so marka arday badanaa jira cashirada qaatay. haddii aad u baahan tahay oo kale cashiradaasi iyagoo af Soomaali ku diyaarsanahayna waad qaadan kartaa. marka waxaan rabaa maanta laga bilaabo inaad raadisid shakhsiyadaada, qofka aad tahay. dadka oo dhan waa isjeclaan doontaan. caruurtaada haddii aad tahay hooyo caruurta isfahmi la adihiin, shakhsiyadaada markaad adiga isashid caruurtaada waad isfahmaysaan. haddii aad tahay xaas oo odaygaada isfahmi la adihiin, saygaada, marka aad shakhsiyadaada heshid saygaada waa isfahmaysaan. sidoo kale haddii aad aaba tahay caruurtaada ama dadka aad isfahmi la adihiin, xitaa aad wada shaqaysaan oo aad xanaaq badan tahay, dadka waxay ku dhahaan aad dhibsatid, shakhsiyadaada weli ma aad helin. kalsoonida shakhsiyadaada ayaa kaa maqan. soo raadso maanta laga bilaabo qofkee shakhsiyadaada, adiga qofkee baa tahay. ogow ma tihid professional oo P, ogow ma tihid peoples, dadka waxay aaminsan yihiin ma tihid, laakiin adiga waxaa tahay P oo ah personality ayaa tahay. okay, shakhsiyadaada ayaa tahay. shakhsiyadaada raadi. ma tihid dabeecadaada, laakiin shakhsiyadaada ayaa tahay. okay, dabeecadaada ma tihid, shakhsiyadaada ayaa tahay. haddii dabeecadaada dadka ay kugu qiimeyn jireen, maanta laga bilaabo shakhsiyadaada raadso.
waad heli doontaa shakhsiyadaada haddii aad diyaar u tahay inaad qaadatid casharadaasi aan diyaarinay ee aan ku sheegay ee af Soomaali ku diyaarsan waad qaadan kartaa waad isa soo hubin kartaa shakhsiyadaada ama qofka tahay waad baran kartaa waqti ay u baahan tahay inaad gelisid laakiin ogow ma tihid waxa dadka ay ka aaminsan yihiin ogow ma tihid xirfadda ama professionka aad adiga ku shaqaysatid ma tihid laakiin adiga waxa tahay shakhsiyadaada ilaa maalintaad dhalatay ilaa maalintaad dhimanayso waxa kula joogay waa shakhsiyadaada